waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii aad moraalkeed u dhaawacmay ali runtii madaxda intaanad hadda la doortay waa is aragnay wiilana talooyin badan waa noo harsan yihiin waxaan garwaaqsanahay maadaama Soomaalida markii hore waxay u badnayd waxay dhihi jireen dhiig cusub isbedel doonanahay la iska dhihi jiray tijaabo maartay marka la gal jiray oo cusub aad loo jeclaan jiray marka waxa waay aragnimada maadaama Soomaalida waxyaalo badan oo ay falaayeen oo qof raysii loo tijaabinayo khasaarooyin badan la soo galay maadaama sanadkan anigu nagu soo xushay odayaal la soo tijaabiyay waay arag anigu maartay noo soo doortay waxaan rajaynaynaa biyaajidan ummadda Soomaaliyeed arintaas inay u faa'iido oo ay tiinka Soomaaliyeed noqoto namayaha qof luqada doorta inay dhaqan gasho arintaas aad ugu faraxsan xaqiiqdii anagu haddii Ilaahay yiraahdo si xaqar la'aan ah oo maartay daacadnimo ku jirto ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada ku habsatay dhinaca amni dhinaca horumarin waa noohay dalkeena maanta sidoo ku sugan yahay isteedid intooda badan degmo kala baabuur lagu tagay ma jirto diyaarad baa leedahay sida hawadaas la maray magaalooyinka lagu dego waa isla ognahay magaalada Xamar caasimada aan joogno wax ku dhex jir iyo xaaladda lagu noolyahay waa ognahay shacabka Soomaaliyeed si argagax iyo naxdin ay u noolayeen dulay ku jiraan arintaas isbedel in maaragtay ummadda Soomaaliyeed dareento si daacadnimo aniga oo anigu isku mashquulaynin in Ilaahay tubtooda natiijo Ilaahay ka barinayna insha Allah